soo dhawaad daawade waad ku mahadsan tahay daawashadaada halka dinaga daawanayso waa janaalka xiisaha dunida fadlan haddii aad tahay booqashadaadii kuugu horeysay subscribe saar janaalka calaamada gambareelkana furo si aysan kuu dhaafin muuqaalada muuqaalkan xiga bilihii lasoo dhaafay baraha ay dadweynaha ku xiriiran ee loo yaqaano social mediaha waxaa aad u qabsaday xiisadii la xiriirtay durdur media sida aynu wada ognaa durdur media waxay ka mid tahay janaalada sida gaarka ah loo leeyahay ee bulshada ku madadaaliya barta muuqaalada la soo geliyay ee loo yaqaano YouTube-ka kuna guuleysatay muddo kooban inay ku kasbato shacbiyad fara badan walow ay jiraan dhaliilo loo jeediyo qaar ka mid ah barnaamijyada iyo muuqaalada ay soo geliyaan kontadooda si ay u madadaaliyaan dadweynaha laakiin dhanka kale waxaa la dafiri karin in durdur media ay ka duwan tahay janaalada Soomaalida ee asaageeda ah kuna tallaabsatay horumar mudan in la bogaadiyo wax badanna ka bedeshay hab isticmaalka Soomaalida ee barta muuqaalada la soo geliyay ee loo yaqaano YouTube-ka marka la fiiriyo qiraalka dhalinyaradii wiilasha iyo gabdhaha lahaa ee horay ula soo shaqeeyay durdur media waxaana shaki ku jira inay durdur shaqo abuur u sameysay dhalinyaro fara badan siin jirtayna mishaar billah hooy iyo raashin si fiican marka ugu dhugatan inta maahe durdur waxay si dadban shaqo abuur ugu sameysay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed kuwa uu ku xamaashay YouTube-ka lacag fara badan ka sameeyay inay YouTube-kooda soo geliyaan muuqaalo la xiriira ka hadalka arrimaha durdur media labada bilood ee ugu dambeysay baraha YouTube-lada Soomaalida waxaa la soo geliyay wax ka badan 600 oo fiidiyo kuwa uu ka hadlaya arrimaha durdur media muuqaaladaas ayaa waxaa laga sameeyay lacag kor u dhaafaysa $30,000 muddadaas kooban durdur media waxay si toos ah si dadban u soo saartay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo maanta magac ku leh bulshada dhexdeeda balse sida durdur ugu listay aanan ugu hambeen uguna abaalguday caay dagaal iyo aflagaado taasoo ugu dambeyn sababtay in bulshada Soomaaliyeed la moosiyay in durdur media ay tahay warbaahin ka soo horjeeda dhaqanka iyo akhlaaqda ummadda Soomaaliyeed daba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay durdur media maxay kaga duwan tahay janaalada kale haddii aan soo qaato qaar kamid ah waxyaabaha ay kaga duwan tahay waxaa kamid ah kow shaqo u abuurista dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed labo soo caanbixinta dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed tusaale ahaan waxaan u soo qaadan karnaa dhalinyarada ku soo caanbaxday durdur media Fartuun Balbalaarka Ismaaciil Xaaji nidaamiye iyo kuwa kale oo fara badan saddex caawinta dadka dhibaataysan dhalinyarada durdur media ay caawisay noloshoodana wax badan ay ka bedeshay waxaa kamid ah Aweys Cali Baaf oo aynu taariikhdiisa ka wada dharagsannahay Abtidoon iyo Samiir Axmed Cali oo ah gabar yar oo 12 jir ah kuna nooleed nolosha darbi jiifnimada su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay waa kuma janaalka Soomaaliyeed oo intaasi sifo ah kulansaday